kula wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba ay khiyaarata hawada nagala xidhiidhay waa mar kale iyo barnaamijkeennii faaqidaada wararka qodobadaad wararkeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid dowladda Eritrea ayaa dhufaysyo waaweyn ka qodanaysa xuduudka ay la wadaagta dalka Itoobiya waxaa la arkaya cagaf aad u tiro badan oo isticmaalayaan militariga dalka Itoobiya oo dhul xadka Itoobiya ah hay godad waaweyn ay ka qodayaan halka ayaa loo malaynayaa inay Eritrea ay doonayso inay ku rakibto madaafiic ay ku garaacdo gudaha dalka Itoobiya arrintan ayaana cabsi weyn dhalisay dadka xuduudka degan ayaana walaac badan ka muujiyay militariga Eritrea cagafta badan wata ee xuduudka soo galay sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda Masar ayaa ku dhawaaqay war cabsi weyn galiyay dalka Itoobiya isagoo yiri Masar waxaa suurtagal ah saacad kasta inay fuliso howlgallo lagu ilaalinayo khayraadka dalka Masar arrintan ayaa u muuqata in la weerarayo webiga Abay ama biyo xidheenka ee dalkaas Itoobiya ay sameynayaan labada dal ayaana shirarkii ugu dambeeyay ku kala kacay iyadoo Itoobiya ay ka garaab weyday gebi ahaanba dalabkii dalkaasi Masar ka yimid sidoo kale Itoobiya weli waxay muujinaysaa walaac jamhadaha aadka u tirada badan ee sida weyn loo taageerayo ay dowladaha waaweyn ay u durbaantumayaan ama dabada ay ka riixayaan iyo dagaalada sii xoogaysanaya iyo dalka oo marba marka ka dambaysa u sii tallaabsanaya dhanka colaada sidoo kale Tigrayga ayaa weli wada dhoola tusiyo loo dirayo dowladda federaalka ee Itoobiya iyadoo gobolada kala duwan ee Tigrayga dhammaan ay ka soconayaan xaflado iyo isku soo baxyo waaweyn oo mid fariin loogu dirayo midnimada shacabka Tigray inay tahay muqaddas iyo mid aan la soo faragelin karin ama cid kasta oo dawladdu soo isticmaasho inay ku soo hungoobayso inay gobolkaasi ay danaheeda gaarka ka fushato dhanka deegaanka Soomaalida haddaana madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Cagjar ayaa lumiyay taageeradii shacabka boqolkiiba 85 xog ururin la sameeyay dhalinyarada inta badan baraha bulshada isticmaasha ayaa dhammaantood leh madaxweynuhu waxa uu lumiyay taageero ballaaran iyo sidoo kale in fursadda uu helay ayna helin 12 madaxweyne oo ka horeeyay uu Mustafa una ka faa'iideysanin deegaankuna qabyaalad iyo qori isku urursi oo kali uu hadda madaxweynuhu ka shaqaynayo beelana deegaankii ay u kala guurayaan arrintan yaa ku soo beegmaysa iyadoo madaxweynuhu maalmahan uu dabaaldegayay 7 sano oo ka soo wareegtay maalinkii loo doortay inuu noqdo madaxweynaha deegaanka Soomaalida 22 bisha 8 ee 2018 ayay ahayd maantana waa 2025 sidoo kale dhanka Soomaaliya haddaana mucaaradka dalka Soomaaliya waa mucaaradkii la baxay samata bixinta ayaa laba kooxood u kala jabay Umar Cabdirashiid Ali Sharmaake Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo ninka lagu magacaabo Daahir andhaho ninka lagu magacaabo Aadan Daahir Geelle iyo Maxamed Mursal ayaa noqday gooni goosad waxayna si toos ah ugu dhawaaqeen mowqifkooda siyaasadeed iyagoo oo sheegay in ay noqon doonaan xisbi la mowqif xisbiga uu hogaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud aynana taabacsan yihiin ama ay taageersan yihiin doorasho qof iyo cod arrintan ayaa waayadii ugu dambeysay la saadaalinay inay raggani uu Xasan Sheekh Maxamuud xiriir wanaagsan la samaystay una xilal kala duwan u magacaabi doono maalmaha iyo bilaha soo aadan xuquuq waxay sheegayaan qaybo ka mid in loo wada ra'iisul wasaare qaybo in loo wada safiiro iyo dulmaasiin kala duwan oo dalka Soomaaliya u shaqeeya meesha kooxaha kale ee aandho madaxweynihii hore Soomaaliya waa dawladda kumeel gaar Shariif Sheekh Axmed Xasan Cali Khayre ra'iisul hore Rooble Cabdiraxmaan Shakuur iyo rag badan oo kalena ay ku taagan yihiin dalka waa in Xasan Garbadub looga qabto sidoo kale warkan waxa ka banaan Jubbaland iyo dawladda federaalka khilaafka ka dhaxeeya
يدولان كعيدان دنك بلد حاو كتاغن iyo doorashada SSC amaandhoog ee waqooyi bari oo Soomaaliya madaxweynaheeda tartanka weyn ayadana fooda inagu soo haya barnaamijkan waxay kala qayb galaya saaxiibkay gooni soo dhawow waan soo laabanaynaa mucaaradka Soomaaliya kala jabay ragga ku dhawaaqay inay xasan mowqifkiisa iyo siyaasadda uu dalka ku hagayo ay taabacsan yihiin waan soo laaban doonaa laakiin waxaan tagaynaa dhanka iyo khilaafka u dhaxeeya dalalka Eritrea iyo Ethiopia dawladda Eritrea cagaf ay militarigu wataan iyo ku qodayaan baa xuduudka dalka Ethiopia godad waaweyn bay ku qodayaan waxay leeyihiin hub bay halkaas ku rikibayaan iyo qorshe kale dhufays bay ka wadaan waxay rabaan haddii Ethiopia weerar soo qaado in godadkaas ay ku daataan taangiyadu barnaamij dagaal ba halkaas xuduudka ka socday kula muuqata Eritrea godadkan dhulkan ay qodayso sidoo horta dawladda Ethiopia iyo dawladda Eritrea xaaladoodu mar ka dambe soo sii dareysay sidaan dareensanahay dawladda Eritrea marka ay dhufaysay qodato ku qasban tahay maadaama ay dareentay dhaqaaqyo ciidan oo dhanka Xumeera iyo deegaano kale ay ciidamada dalka Ethiopia soo buux dhaafiyeen iyo dhanka Canfarta lagu arkay ciidan badan oo Ethiopian oo difaac soo galay marka dhufaysada ay qodanayaan Eritrea waxay u tala gashay in xadkeeda si toos u xirato ayadoo waliba gudaha dalka Ethiopia ku jirto ay haddana dhulkeeda difaac ka sii xiranaysaa sababtoo waxay ogtahay in gudaha dalka Ethiopia dagaalka haduu ka dhex bilowdo hadhow in la isla imaan karo maxaa la yiraahdaa in xuduudka la isla imaan karo marka sababta difaac u galayso waa taas in xadka dhan waa dhiririsay oo inta Ethiopia la wadaagto dhan dhufays ay ka wada dhigtay cidii halkaas soo gudubtan waxay dhahan waan ku dhamaan karnaa ma gudbi karaan marka Ethiopia waxay dhahday waxaan midaynaynaa dalka Ethiopia waxaan dib u soo celinaynaa Eritrea waxaan dib u soo celinaynaa qof kasta oo isku dayay inuu go'o ayaan gudaha dalka Ethiopia ku soo celinaynaa sababtaas waa sababta saanada military iyo dhufaysyada iyo ciidamada iyo dababaadka in loo soo daabulayo oo dagaal inuu ka soo socdo dhankaas waa loo yahay in ciidamada Ethiopia naftikooda dhaqaaqyo badan ay wadaan oo ay doonayaan inay weerar ku qaadaan marka xaalku ma sahlano Eritrea iyo Ethiopia waqtigaas farsaaray way dhowdahay difaacyada hadii la qotay ciidamada la soo daabulay diyaarada iyo wax walba la sifeeyay meel kasta waxa way hub la geeyay badaha xataa Eritrea ay dhowr 20 markab oo hubeysan ay geysay waxa dareemi kartaa in dhaqaaqyada jiro in mar walba ay aad u sii fogaanayaan dagaalna uu qarxi karo sanas leeyna SS Aforki iyo Abiy Ahmed oo la feesteen doona goordhow oo dagaalkoodu maraan dheereen uu qarxi doona shido waa mahadsantahay gooniyow waxaa sidoo kale dawladda Masar oo iyadu qudhigeedu dagaalka qayb ka ah iyo abaabulka ciidan ee dalkaas Ethiopia ka soconaya labada dal khilaaf weyn ayaa ka dhaxay wasiirka arrimaha dibadda dhawaan mar warbaahinta la hadlayay dalkaasi Masar ninka lagu magacaabo Badri Abdulayti wuxuu yiri dawladda Masar saacad kasta ay qaadi kartaa talaabo lagu ilaalinayo kheyraadka dalkaas waxaan ogsoonahay in Ethiopia Masar wabiga Abaya isku hayaan biixidhankan Ethiopia sameynayso Masar ay ka soo horjeedo Masar ay badan dulqaad sameynaysa ay lahayd wabigan waxa laga wada wax heshiis lagu yahay lagu dhiso Ethiopia ay lahayd dhulkan naga wada hadalka ma galayno oo heshiiskii hore haddana Ethiopia inta ka baxay ay dhul wabiga qaybta ugu dambeysay haddana ay xidhayso intii yareed daliil qayd ee Masar wax geynaysay marka wasiirku wuxuu yiri waqti nooma cayimno haddaan caawa bilowna iyo haddaan berri bilownaba markasta nafisha oo ku tala galay inuu dagaalku fooda yahay marka Masar ma laga yaabaa inay duqeynta bilowdo Masar dagaal way u diyaarsan tahay oo waxay dareemaysaa horta in Ethiopia la tirays farsaar doonaan dagaalkooda markuu qarxo waxay rabaan ayagana wabiga Abaya inay duqeeyaan oo biyo xireenkii halkaas oo ku fashilmo marka qorshooyin waxba isla raadinaysaa Masar dagaalkii inay qaadayso waa loo yahay in wabigaasna ay rabto inay burburiso laakiin waxay rabtaa markuu dhibaato ku furanto in dhibaato labaad ay ku furto ay tiraado war Masar aan iska celinaa mise waxaan iska celinaa Eritrea mise gudaha dalka Ethiopia la dagaalanaa qolooyinkan haysto marka taas ay qorsheynaysaa Masaaradan way sheegeen in duqeyn doonaan ayagoo waliba Masar joogo Qaahiro laga soo duqeyn karo wabigaas ay duqeyn karaan oo Masar awood u leeyihiin gantaaladaasna way haystaan casriga ah marka xaalka dalka Ethiopia cadow badan oo sameystay Abiy Ahmed ragii ka sareeyay ee ka adadka ee ka dhibka badnaa ee ka dagaalyahansana cadowga maanta Ethiopia loo sameeyay muu sameeyay Soomaali ma arki karaan Ethiopia ma arki maxal daa nimanka Eritrea ma arki karaan Djibouti ma arki karaan Sudan ka sii daran Masar ka sii daran waanta wadan ay arki karaan oo diris la ah ma jiro intaasna waxa sabab u ah Abiy Ahmed sabab ah iyo doqonnimadiisa iyo salbalaarsiga beenta oromada u raadinayo iyo tababarka ay maalayacniga oo muddo 7 sano ka badan oo waday oo 3 milyan in ka badan oroma oo tababaray maantana meel ay ku dhaqaaqaan wax ay qabtaan la gaajo cunto loo leeyahay $20 $30 qaataan askarti waqtiga waqti cunto ay cunayaan dhibaatada iyo gaajadaas ayuu ku jiro haddana waxay ku leeyihiin waxaan rabnaa inaan qabsano bariga Afrika oo dhan oo quwadda Afrika aan noqono oo waliba waxay leeyihiin 10 dal ee adduunka ugu awoodda badan ay noqon doontaa uguna dhaqaalaha badan 100 sano kadib Abiy Ahmed 100 sano kadib xagoo jooga marka adduunku waa iska fashil waa iska af Soomaali maalin walba waxa waaye wax cusub ku hadlay Abiy Ahmed dawladda Ethiopia markii in la weerarayo oo Masar ay weerarayso wax iska cad saacada dhaceysana lama garanayo shido aad iyo aad baad u mahadsantahay goonigow